madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar kaga ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa maanta gaaray magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Beijing waxaa ku soo dhaweeyay wasiirro iyo saraakiil ka tirsan dawladda Shiinaha. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa magaalada Beijing waxaa kaga qayb galayaan shirka wadamada Afrika iyo Shiinaha oo sanadka lagu gorfay doono arrimaha iskaashiga dhaqaalaha, horumarinta warshadaynta iyo sidoo kale caafimaadka. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa saacadaha la soo socda waxaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping, waxaana la filayaa in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan iskaashiga labada dal Soomaaliya iyo Shiinaha iyo sidii hore lagu qaadi lahaa iskaashiga qotada dheer ee labada dawladood ka dhaxeeya. waxaana sidoo kale la filayaa in labada madaxweyne isla soo qaadaan sida dawladda Shiinaha ay Soomaaliya kaga taageeri lahayd dhinaca military iyo la dagaalanka argagixisada.